iyadoo magaalada Jabuuti xarunta wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo shalay ka furmay shirka dab u heshiisiinta ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma in la xoojiyo wada shaqaynta labada dhinac isla markaana la xoojiyo wada jirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. go'aamadii ka soo baxay shirkaasi waxa kamid ah in la dhiso guddi farsamo oo ka shaqeeya qaadista go'aankii ka soo baxay shirkii shalay iyo shirarkii ku horeeyay hore u dhaxmaray dawladda federaalka iyo Somaliland. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo martigeliyay shirka ayaa si wada jir ah u furay dhaqangelinta go'aamadii ka soo baxay shirkii shalay oo ugu muhiimsanayd in la dhiso guddiyo farsamo heer wasiir kuwaas oo ka shaqeeya in la fuliyo go'aamadii ka soo baxay shirkii shalay iyo waxyaabaha ka dhiman sidoo kale dib loogu laabto waxyaabihii ka dhaqan gali waayay heshiisyadii hore u dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay go'aamada ay soo saaraan guddigan isla markaana loo baahan yahay run hal isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run hal laga dhigo hal rubay taas baa inaga soo ku soconaa xagga iyaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoraas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogdhaawaan u nin idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddidan wasaaradda loo soo wareejiyay anoo tilmaantayda waan nidhi halka war hal wada heshiiyo war wax la isla afkarto war dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaa khasab ma in maanta wax walba la isku afkarta waxa weeye waa in talaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karnaa maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo shirkani martigeliyay ayaa kula dardaarmay dhinacyada Soomaaliya inay ka shaqeeyaan walaaltinimada leh maamuuska iyo sharafta ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wada hadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah dhanka khayr kale u wada dhanka dhismaha u wada dhanka يعني وحوض قبسية وصعدة madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirka ka jeediyay hadal kooban ayaa kula dardaarmay lamada dhinac ee ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee loo saaray dhaqangelinta go'aamadii shirkii shalay kuwii ka horeeyay inay mas'uuliyad la uga shaqeeyaan danaha shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay noqdaan kuwa taariikh reeba shacabka Soomaaliyeed ay xasuusan doonaan shirkaani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhawaan ma ahayn sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay
dhib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaan naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadamku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haddii noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam ku horumari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay way oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Umar Geelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee tageynaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa gudigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin gudiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideena dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogan idinka fikirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ilaa waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dad halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirta annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan shirka dhab u heshiisiinta ee ka furmay magaalada Djibouti ee xarunta wadanka Jamhuuriyadda Walaalaha Djibouti ayaa qayb ka dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku doonayso ama ku fulinayso qorshaheeda loogu magac daray dhab u heshiisiin isla markaana si dhab ah la isku dul istaagayo waxyaabo keenay shakiga iyo kala qoobnaanta bulshada Soomaaliyeed Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Djibouti